بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول ديالك شرفتي قايق ليني للدرير وهكذا هذا وركي هميني من تلفزيون كراديو ورسان تلفزيون كورسان بلدكم بيدو وقبل شيء القديسين ورر كانوا ولماذا يسين قول دونتان ما يبقوا متها وزارة أمن الدولة قبلت كوفر قلبت صوماليا ما يبقى كبيرة أوامر كإيدن أمنية ديجانا كوفر قلبت صوماليا قضب حان ما يبقى أوامرتي وزارة هبيدي كوميتاي إني خبكو سيد معنا الدرجة اللي خداو لكروجي يأونا كلون دقاتي يبوش القديسين إيه وجانك لامو أمنية معمول قبلت كوفر قلبت وزارة والبرشة دولة قبلت كوفر قلبت صوماليا يجي كما يبقى بوقشة كسوب بداي حانا وكمية إسكولات كيالان بلدكم بيدو maamulka gobolka iyo degmada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyana may bawadana hoolka eedan sidii in bileeri lahaayeen jidite dhamaraw beledkum baydhabo maamulka guud ee iskuulaadka macruuf ee kiyaala beledkum baydhabo iyo siina may ba ku warbiyay qaabkii andareerta walbarashada iskuulaadkaas kureed markii awlaadda dhigadaas iskoolkaas reedahan ku laabadeen imtixaankii teeramkaay ee la qaaday sanadkii dhamaaday 2019 wadabadana may baan ku wiina Iran oo ka goodidii inii aargoosashadii xumaaytii ka dhaw doonta dawladda Mareykanka kureed markii uu ku dilay sarkaalkii in ka koreeyay ciidamada dalka Iran Qasim Suleymani intaasna bay bahaayeen qodobadii warka telefishinka warsan ku wiinay hatana ha ka dhawaada iyagoo ofissan oonimi isniin ay u talaadin yahay galanta taariikhdin iyo ka eedanta litibil koowaad sanadka 2020 ha ka dhawaada warkii ofissan wasaaradda amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya may baha biiday awaamirkii eedan amniga kureed markii kulamo la qaadatay saraakiil inka koreeyta لامو أمنية دولة قبلت كوفر قلبت صوماليا ففاين توركونا ما يبانين هاي ورياجانا قالد عبد إبراهيم قالد داري شركون يو إنسكو كوين لامو أمنية ما يبشر قدومياي وسيرك وسارد أمنية قدود دولة قبلت كوفر قلبت صوماليا ما يبان حقوقيب قلي تليا كحوجين كعيدا كحوج الدلكة قيبت الإحدانات تليها عيدا كدراويش كوفر قلبت تليها بوليس كوفر قلبت إيا سراكيل كلا شركين توسدرير ما يبلنكو هذا لي xoojiyowka amniga iyo ku horseedowka falalka argagixisada iyo ka dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed shirka inta uu dareeriyay balha ku saaray awaamirka eedan askarta isticmaala samaandooriyaha iyo handheelow qamaarka wasiirka wasaaradda amniga guud dawlad goboleedka koonfur galbeed oo la hadalay warbaahinta kureed shirkaasay wallahi ma kasabsinya awaamir oo ku wajahan ciidamada oo magaalada Baydhabo ayaan tuunay ka ziyaaday xabad oo لسه جمو هميجي جمالا يعني مجاردي أرجع كحالك أوري حبذي أو معناها يعني ميل كيان اللي صوت لي ردوم لإنكسان بدون دمان سراكيش لما أمانك ما أمرانه أنتي إذا مثلا لو ورب جوب تسكتر سناي لك أمر أنتي سكناك إذا هو حركة سناي ملا لو ورب جوب كتر سني لم أروح تسكتر سناي يقوم تسكتر سناي أنك بوليس أنا ميلو سكتر سناي بوليس بوست يسكتر سناي لكوجا يتوس شغال يقول إذا من ملتري من فلانة إذا من دراوس أو من بدنا والله ميلو سكتر سناي يتوس ما زيادة إذا مدي أقول كوجا جوابات يو أنتي أسكوبهم سمالا يعني أنكوا مقالنا ولا شقة هاين أنا لهين شعب كأرجع يحكي هاين حبات أسكو جماعين سناكيش ميل فري الله إدي أو حبات رد أو ما لا يعني رد وديت لابو نقطة أو شرق وافقسي ميك أمرانة أنتي نانك بروجاز جيم برول هذا نانك حبات دري برول هذا وأنا ليهر عدالة المرسي من دول هذا دون ما نقول هذا دون أنتي مجال الأرجحي سبب لام حبان ينكر أو مجالي تلاص أو أمن دخل الأمور تأسيس ما عندنا قاعدة دولة قبلت كونفور بالبيت
may faraase anoo kaadalo magaca wasaaradda amniga may fadaan inta tilaabo sharciga waafaqsan qaada laakiin gurigaas xabad kurida maalayaan irdoon qorol ku wareega waana lihir id allaale idii goobta ka tirsanayti ku tabta oo magaalada la araga iyo oo macna fasaxan ku haysana sabab oo taliyaashi uguna ku tabna miis ka tirsanay isoo la qowda qorol ku wareega مالني شيء أو نحقيقي أنتي جرام عيدما أو كترسن دولد أنتي أمر كبيرين مقال ما يبقى فرانة سراكيش أو لا ما أمني اتقل إدي أو أما عيدن كدولد كترسن هذا أما كترسناني لان الله لانكي أو أمر بيرو لا أرجع ما يلفري سراكيش أنتي تلاوه قادم goobtiyo qamarka dheereen kala dagaalama qofkun ku dhikan hadii amar diidu suubiyana ku qaada tilaabo sharci waafaqsan meel faray anti la ruuji si degdeg ah goobo qamar la dhiro oo magaalada Baydhabo kiyaal walogi iyo dadka oo hashiishka ku dhigo macnaha goobo qamar ay hashiishka sajarane meel qamar la dhiro hashiish mufgade waan halka dhugay may fadana may amarana saraakiisha inta tilaabo degdeg ah qaadan lagu bilaabo geek meel amaray lama amaan anti ku howlgalan goobaas waan ruujiyaan idii amasha diidona tilaabo qaadan Khalid Abdi Ibrahim radio-ga iyo TV-ga warsan magaalada Baydhabo wasaaradda walbarashada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya geek mayba kormeerka soo bidayahan oo kumid iskuulaadka kiyaalan beledku Baydhabo faafahinta warkaasna may baneen hay wariyaagan Cabdullaahi Nuur Aadan Jaylo mas'uuliyiin horwadeena ku dareer wasaaradda walbarashada dawlad goboleedka koonfur galbeed oo soo hogaamiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo geeka kormeer waliba ay ku soo biyanahan oo kumid iskoolada kiyaal magaalada Baydhabo ujeedka kormeerka kiyo iyo waliba uu saayay sidii oo ku kurgal lahaayeen xaaladda walbarashada ku jirta iskoolada iyo waliba sidii iskooladaas lindiirsi lahay manhajka cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan iyo saartay kaas oo madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan محمد لفتقران وسا دافوري وزير كحجينك وزارة والبرشة كونفور قلبات جبريل إبراهيم آذن يا وربعين اللحظة كرمير جوكريت دمان شغالة وزارة هيبة كرميرة سي سكولاتكي أنا وزير كحجينك يا وركهاي وجيت كنا ما هاي سيدي لان كرميرة لهاي منهجكي مالن دويل ديبي ومدحوينا دولة قولات كونفور قلبات مدن عبد العزيز حسن محمد نين فوري نين ده فوري منهج كاس اسكولات كي لسي تردي او منهج هاي بوغاك هايتي كوبناين او اسكولات كديري اني ونوغانا يو جريد 1 الا جريد 8 اسكول والمادو والبولاي كديري انو نحلنا او وزارة اوغاتا ساحدو ميلا راي لانكا كورمير منهج كاسي او اسكول والب لسي iyo imtixaanaadka oo iyo lagu qaado doona manhajkaas lagu qaada saxadoo ma ilaahay wareeranka dhina mahna deerni iyo langarna dartiyo geek wasaaradda kormeerka sansuubidi marka may baahneen bahay iskuulaadka dhamaantiyo inii wada deeri tiradana may waa si sax ah inii han gudbiyaan maalinta Arbacada intii buugaga iyo deerti markaas ku dibna wasaaradda si toos ah qeybi doonta manhajkii usbuuca hortaan iskuul walbana si lanka dhaka fadhi marka alxamdulillah kormeerkii hataa in gabagabaabi iyo geeka maalinta la maadan in dhaman oo bariyayto iskuulaadka kale nasteeda doogna jeelna ma ilaahay waqtidan lixsaab meelo deeron xaq gabagabayaan oo bilaayar bari in gabagabaayaan inta badan iskoolaadka marni tan kale mayba faday intan ku faa'iideysada bulshada deegaanada koonfur galbeed guud ahaan an sheega faday kormeerkan kaliya makaak maylaray koonfur galbeed oo dhan la kormeero doona degmo walba oo deegaanadan koonfur galbeed oo manhajkaas deerin warka kormeero doona maylaray imtixaanaadkaas eedidkaasna wada gala doonaan sanadkan hadaa dare sanadkan natiis oo bil May yalla qaado doona marka may fadaane maadaama waqtiyadii dambe oo wasaaradda ka hoolanaytay sidii manhaj sax ah la helo fadhi maadaama manhajidii hore iyo haayeen manhaj collection oo dhowr wadan iska jareen 30 sano la dhaafina meel ay manhajkaas la isticmaalay marka meelan gudubay
si lan hela manhaj oo midaysan oo afka Soomaaliga ka qoran maadada cilmiga iyo maadooyinka artiska dhamaantii ka qoran yihiin marka maadaama hadii uu helnay manhajkaas oo dugsi dhexe iyo hoose la helay dugsi sarena hadda ma leeyahay hoolis dareerta may fadana heer jaamacadeed in manhaj oo midaysan Soomaali guud ahaan in la helo wasaaradda ka shaqeeyay marka may balahay bulshada ka faa'iideeyay iskuulaadkii manhajkaas deeri dhammaan walaal iskuulaadkii public ahaayeen ama iskuulaadkii dawladda lahaayeen oo isticmaaleen private-ka hadda may helnay iskuulaad badan oo beeslange oo free education madaxweynahan hore ballan qaaday iskuulaadkaas may ba kumid iskuulkan Koonfur Galbeed iyo iskuulkan Alceen iyo iskuulkan Sahal Maal Ciise iyo iskuulkan Dr. Ayub Shaasharow iyo Hulwadaag iyo may kumid iskuulkan Leerow Abdullah Deerow Saak iyo Sahal Maal Ciise iskuul Leerow Nuur Islaam dhammaan iskuulaadkaas may ba ayna iskuulaadka beeslaanta ee dawladda macallimiinta oo dhaqaalaha dhibaayta walaay lan baahnaayo oo fasiilaad iskuulkaas baahnaayo wasaaradda koonfur gareeyayte marka manhajkaas deeri macallimiinta hadii manhajkii deeray macallimiintana may leeyahay mishaarjo la biyahay marka Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga Warsan Baydhabo maamulka gobolka iyo degmada Baydhabo iyana may ba bilaaween hoolyo ka bileeraan jeetay kiyaalan beledkum Baydhabo kureed markii dadka ka nool xaafado iyo ku owaadeen eeg badan oo ku jara iskorsaarka xaafado kiyaala beledkum Baydhabo warkaas bay baneen faahfaahi doonay wariyaagan Maxamuud Cali Cabdullaahi Gaabsha waliba wili socda reedan dhasowka jididka magaalada Baydhabo ee gobolka Baaya walibana howlgalkan bileeran lakabade jididka xaafado oo maamulka gobolka iyo waliba kan degmada iyo badan meelogan la burburay yaa jidid iriiray oo dadka nasashare dore iyo hangalan walibana maamulka uu fadaxay intii xaafado sanadka dhaboona iyo jidid bileeran iyo onku biyaan waane masaakiinna binaanga jiifna lan 4 mitir leek jaro jar lan 9 mitir leek jaro jar lan 2 mitir ka jari lukudumiyo wajar 2 mitir lahay dumiyo bamadi inta ka agda dhisoy munka diyaar ku dhisoy li yaro ya faylaada fadi mali yaroy munki binaanga jiif awlaad badan binaanka jiifan irin hayta rooban hay wal onay tohto on hugsidaano on dhax galaano on haysan malle baaga muudinin dheer maamulka koonfur galbeed oo qoodsaane intii on to galan wiininka jeeysadan walaalyogaanu lan allankii golnin qobada kor wali intii on to golnin qobada eediyadin jeelna wadada burburja ka qanaasan wadada istiraajiyo oo nin roonta laakiin intii hano dadajiyo yooti nin suubi abirka on no jaro nin sheego ki on to oo on hanin hirowna nin tusa wan dhisan walaagay lan allankii on to kaalman nin jeedi koron nasi korona kaalman nasi maamulka koonfur galbeed شابوينا وانا تورير كفر قبل انا سقط سودان جدكي يعني ترتيب انك صحدو يعني سو فايل انك مرسيدو يا ايد رجيان جدكن ايد انك فرحسن يعني دمشي واسعين انك ويل ايد انجيلنا ولول بنك فرحسن way qood sadaan intii dadkaasna garabsiiyaan jidkina sinadaamena in ku suubiyo tinahariisle nabadgeliye walwal bananin kaagaagan horeeya maamulka gobolka iyo waliba kan degmada Baydhabo burburan jidada dhoore ana city ona nagadi ana bulshada eediyoon ku faa'iideysadeen qorshagoon yaa koobileeda magaalada la kaagajiyaya Maxamuud Ali Cabdullaahi TV-ga iyo FM Karaadiyaha Warsan Baydhabo maamulka guud ee iskoolaadka Longordaw macruuf ee kiyaala beledkum Baydhabo yama usiina ku warbiyay awlaadda dhikadaasi iskoolkaas kureed markii waxa ku naqdeen imtixaankii teeramka hay oo la qaaday sanadkii 2019 ku gudubni mayba kaloo maamulka koro iskuulaadka macruuf u sheegay in caqabad badan haysato awlaadda saadaraadina faray ganacsatada ka nool beledkum Baydhabo inay wal an reebaan ciyaalkaas waan reetaan deeyaan si um ka dhiiridaan rumayo kilimoodiyo ka eedan in iskoolaadka walbarashadiyo ku deeraan hankiyo ku leeyin warkuna mayba nin fayri doonay wariyagana Abdirashiid Ahmed Ibrahim Rashka iskuulka macruuf primary and secondary waliba uu ku mid yahay iskuulaadka unkure walbarashada asaasiga ee magaalada Baydhabo kaasi oo la asaasay sanadkii 2010 tan iyo xilligaasi waliba ku baahaya arday fara badan oo qaarshob macallimiin iyo maamul iyo Kenya qaybo shirduun ee iskuulka macruufa 1421 iyo dhigadaas iskuulka oo in iska jiraan gabar iyo kuriba
soddon macallimiin yaa baryaalku ee walibana usahooskooya dalada walbarashada ee Ivanesa. Cabdiqaadir Ali Axmed Cadaawe waa maamulaha guud ee iskuulka Macruuf walibana uu ku sheekay marxaladii uu saameeyay iskuulka waalidiinta ardayda iyo iskuulaadkan diraayan oo ku warqabna awlaadiyo iyo sida ganacsatada lanku baahan yahay inay taageeraan ardayda iyo awoodna inay isku biyaan qarashaadka walbarashada waan baahan in la fidiyo gargaar si oo dhameystiraan rajooyinkooda walbarashada ilaa hadda may buu farqi weyn dhaxay markaad fiirada dufcadii ku horeeyay iskoolku qaran jibiyaasi way haytay waa arday tuma ilaa ma arday ku qaran jibiyadi xala gabar ku haytay geegana may buu ay 70 gabdho ku 160 koreeyo taas way buu ay horumar isu suubi iskoolka oo waana la dhabar adeegay may buu ay juhdi badan la geliyay dhammaan shaqaalaha iskuulka sida macallimiinta dhammaan shaqaalaha maamulka oo dhan juhdi geliyeen iyo heerka iskoolka ka deeri waana heer fayla marahay iskoolkan waa walbarashadiisa eedan faylata aydu waalidiinta inta dhakadayaan isku mid ma waalidiinta qaar ma ee ardayda iskoolka dhakadayaan eedan ku warqaban marwalba nin kooyaan natiijadii fiiriyaan kan waliba gudoomiyaha guud ee ardayda 8 qaybood ee iskuulka Macruuf walibana uu ku hadalay sidii ay walbarashada ardayda imtixaankii teeramkii dhamaaday ee ardayda oo fadhiyeen iyo kan dambe iyo higsidayaan may badagaday fasalka oo form 4 en tan baynaha walbarashada maana sida dugsiyad kan oo may baa una form 4 gaan alxamdulillah in badan may baa aqabada iyo may baa wal hada saameeyay oo na kulmahayn oo geeka damay baa meelan yahay sida ma sha Allah macallimiintan iyo ardayda ma sha Allah sida oo inka macquulsan geeka may baa dad iska duuban walbarashada iyo juhdisho in badan may baa la ka dadaalay geeka may baa waxa qabato iyo hoolasho may baa si weedo إن شاء الله كل إن بدن أو كم مدة سكول كي كان مجاشي ما يبغى حتى ما يبغى لها هاي انقصي بدن سنة كان هو بلاي إندين ما يبغى جان أنت ما يبغى دل كشاك ولا دون هو بلاي إندين أو ناقد دون جود شيء يوني تدال شيء هو بلاي إندين والله ما يبغى حتى يلعب الله وما والله ما يبغى سنة لهذا في ما يبغى جود لها بيا يلا على سؤاليو iskuulku waa koob iyo 3 qaybood iyo waliba uu sokyaale goob ku faylan walbarashada bartamaha magaalada Baydhabo iyadoona iskuulka uu seeyaa ko manhaj jawsiya ko ku bahawa luqadda Ingiriiska oo taasi oo ka dhigdeena iskuulka isku duwanaada iskuulaadka kale ee yaala magaalada Baydhabo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka raadiyaha iyo telefishinka Warsan magaalada Baydhabo meelihiisan kula dareertaan warkaas waliba hay telefishinka Warsan ee yaala beledkum Baydhabo Warsan Media Network maamulka unka koreeyay ee wadanka Iran yamay basheegeen iniyo taariikh mal hilmaamaan ay ka dhow doonaan dawladda adduunka awoodonka faantay ee Mareykanka kureed markii la ku dili sarkaalkii unka koreeyay ciidamada dalkaas Iran LRI Qasim Suleymani oo la dilay beledka Baghdad barordiiq hanis bambahow badan oo yoo suubiyeen dad badan oo dhaladii wadanka Iran ihaano taageerayaalan dalka Iran ee ka sugan Baghdad kureed may badareere hanjabaadi isbuulidow ka eedan inii lamaada dal lagu obsagaba in isu dhaxmara dagaal sarkaal kore oo hadalay dalka Iran yamay basheegay inii weerar doonaan dhowr fariisin oo bariga dhexe u sakaleeyay dalka Mareykanka waana seeji doonaan dana badan muwaadiniin badan reer Mareykan yaala inii barooradaan sidii muwaadiniinta dalka Iran oo barooradeen Iran iyo Mareykanka teeliyo yamilhu maro hayta may baana lamaada dhiniba ka jaraan diyaar garowyo oo la sheegay in ciidamada Mareykan oo tiradiyo lama kun koron dhaafaas dhasheen mandiqada bariga dhexe iyo oo ciidamada dalka Iran iyo la geliyay heegan buuhu lanka koreeye ee wadankaasna u sheegay Ayatollah Khamenei ini dawladda Iran marbuun hunduru doono intiba horyaala dhiigi ku deedahay sarkaalkii sare ee ku tirsanay ciidamada dalka Iran LRI Qasim Suleymani waana la ku duugay dalka Iran dhageystayaal warkii telefishinka Warsan oo isu kula dareertan beledkum Baydhabo oo nimaadon inta ninka dhooyin inta warkun wargey kale reed anga kulama doogna aan warka siin akhriyay Mukhtaar Shaqaadan Dalmar saaxiibkay Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle Maleele oo warkaasiin bi may basin ugu tabaanaysa si nabadana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh